tabaarag waa u hambaleynayaa abaalmarintan caalamiga ah oo ay ku guuleysteen oo ka marakacaysa kartidooda iyo karaankooda iyo hufnaantooda. Ka Soomaaliran ahaan tabaarag waxaan ka wada shaqeynaa barnaamij la yiraahdo bile. Bile sanadka la soo dhaafay oo 2024 waxaa lagu tababaray 150 arday. 150 arday oo jaamacadiyan la xiriirnay iyaga marka hore noo yimid oo waxay dhaheen waxaan rabnaa inaan ardayda jaamacadaha tababarno oo si aan bulshadeena wax ugu celino. Marka 150 arday oo 150 arday oo jaamacadaha dalka ka dhigata computer science ayaa jaamacad walba male maqlooya jaamacad walba waxay soo xushay ardayda ugu tifsan oo ugu kartida fiican ugu hal abuurka wanaagsan. Marka 150 arday wadartooda noqdeen way tababareen muddo ayaa tababar u socday. Finally waxaa la sameeyay in 150koodii inta imtixaan laga qaado dadkii ugu tifsanaa ay ka shaqaaleysiiyaan. Tabaarag waxaan aad ugu bogaadinayaa in isha ay dadka ka qaataan oo ay wax ka shaqaaleysiiyaan uu mashruucaas yahay oo halka magaalada meelo badan oo ka mid ah qaraabanimo iyo ehelnimo iyo wax lagu shaqaaleysiiyo iyagu inay pioneer ama horyaal ay u noqdeen inay dadka intay iyagoon aqoonin reerkooda iyo maxaa la yiraahdaa aqoon gaar ah u lahayn oo qaraabanimo iyo wax kale oo kala dhaxeeya aysan jirin. Tabaarag waxaan ku bogaadinayaa in arday Soomaaliyeed oo isan garanaynin reer ay yihiin imtixaan ka qaadaan dadka ugu marka hore la tababaro dadka ugu fiican oo ugu maxaa la yiraahdaa tabsana ugu kartida iyo karaanka wanaagsan inay maxaa la yiraahdaa sida ku shaqaaleysiiyaan. Waxaan sidoo kale bogaadinayaa hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo kaalin ka qaadatay taabagelinta mashruucaas guuleystay. Ardaydaas 150ka ah markii tababarkii la siiyey intoodii soo baxday iyagoo semesterka u dambeeya jaamacadda dhiganayo ayaa waxaa la siinayay transport oo maxaa la yiraahdaa oo gelina jaamacadda inuu dhigto gelinka dambana inuu tabaarag intuu yimaado ku tababarto oo tarakis kala duwan oo 3 nooc ahaa oo qofku tababar intuu qaato gelina uu wax baranayo gelina uu shaqeysanayo. Jaamacadda markii uu dhameeyana contract la siiyey oo si full ah ay maanta ay shirkadda tabaarag uga howlgalaan. Waa isku day iyo maxaa la yiraahdaa aaminaad ay yar tahay in laga helo hay'adaha iyo shirkadaha Soomaaliyeed aadan maxaa la yiraahdaa uga bogaadinayaa. Tabaarag wixii ka talawday xuduudda maalin dhawey Tanzania tagay waxaan raacay taxi oo faras oo shirkadda tabaarag ay sameysay. Waxaa bogaadin mudan in arday ka baxay jaamacadda Soomaaliya ku taala uu developer ka yahay taxi ka shaqeeya Tanzania iyo maxaa la yiraahdaa Uganda iyo Nairobi iyo Kenya. Waxaan rajeynayaa in sida tabaarag ay dhalinyaradaas u aamintay dadkii iyo dalalkii tabaarag ay ka shaqeysaa ay u aamineen product Soomaaliyeed in shirkadaheena iyo wasaaradaha iyo institutionada dawladdu iyaguna ay aaminaan dhalinyaradaas inay dad wax awoodo karaan leh aqoon leh hal abuur leh wax sameyn kara wax fulin kara inay yihiin in lagu kalsoonaado. Macalin systemyo badan oo dalkeena ka shaqeeya oo udub dhaxaad u ah dawladnimadeena waxaa gacanta ku haya oo sameeyay shirkado ajaanib ah. Waxaan ku xusi karnaa systemka hadda Niira oo qofka inaad Soomaali tahay systemka lagu cadeynayo waxaa sameeyay maxaa la yiraahdaa dad ajaanib ah. Systemka oo CID-da dad ajaanib ah sameeyay. Systemka baasaboorada ajaanib ah sameeyay Masar u yaala. Waa marna waa walwal iyo khatar oo dhanka amniga xogta ah marna waa fursad dhalinyaro Soomaaliyeed ay mudnaayeen oo la siiyey maxaa la yiraahdaa dad ajaanib ah. Waa walwal amni oo hadda hor waxaa dhacday in 2014kii shirkaddii baasaboorka gacanta ku haysay dawladdii hore madaxweyne xasan sheekh intee dhahday waa laga wareejinayaa ay systemka xirteen xogta iyo la goosteen meelaha uga dacwooto ma leh. Shirkadda Soomaaliyeed haddii ay xataa wax kala goosato wax khalado waa taqaanaa meesha ku taallo
ciidan u dirsan kartaa haddii xitaa isku wareertaan laakiin qof oo hindiga salkeeda fadhiya iyo qof maxaa la yidhaahdaa romania jooga hadduu wax kaa khaldo meel aa u raadsato oo aa u daba gasho oo u daba kacdo ma leh marka waxaan rajeynayaa hay-adaha dowladdu inay dhalinyarada soomaaliyeed aaminaan ay ku kalsoonaadaan waxaan bogaadinayaa maamulka gobolka banaadir iyo maamulka galmudug hirshabelle iyo koonfur galbeed oo tabaarag sistamiye ay samaysay maxaa la yidhahdaa ay ka shaqeeyaan maalin horan galmudug tegey dhalinyaraha meel fadhisa control ah canshuurta waxay BOS ay haystaan systemka baabuurka markuu yimaado targadiisa gelinayaan inuu canshuur bixiyey in kale halkaasi ku ogaanayaan system ay tabaarag ay samaysay ayay ku shaqeynayaan mootooyinka mootobajaajyada hadda u aragnaa askara intay hor istaagtay nambarka gelinaysaa inaa bajaajtan ay canshuurta bixisay in kale tabaaragaa samaysay shirkado kale oo Soomaaliyeed oo iyaguna systemyo noocaas ah sameeyay maxaa la yiraahdaa waa jiraan tabaarag aadan u bogaadinayaa hambalyaan leeyahay waxaan rajeynayaa inaad halkan ka sii wadaan joogteynta maxaa la yiraahdaa tayada iyo hufnaanta iyo kartida iyo karaanka leedinku ammaanayo guulaan idin rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu